sagaal xabadood ayaa meelo kala duwan si ula kaca looga dhuftay weerar sanadkii 2012 lagu qaaday rug ganacsi uu ka shaqeyn jiray magaalada Marka. Asad Maxamed Xaaji oo loo yaqaan Asad Xaajiyo oo wiil dhalinyaro ah oo qalalaasaha Soomaaliya ku naafoobay laakiin noloshiisa iyo himiladiisa ka muusan quusin waa sawir qaade barnaamijyo taxana ah ku baahiya bartiisa YouTube-ka oo ay dad badan ku taxan yihiin. BBC-da ayuuna ugu waramay sida uu noloshiisa ku maareeyo iyo sida uu weli ula nool yahay dhaawacyadii soo gaaray 10 sano ka hor. magacaygu waa Asad Xaajiyo waxaan ka mid ahay dadkii ku naafoobay qalaasaha ka jira dalka Soomaaliya waxaan naafoobay taariikhdu markay ahayd 27 Agoosto 2012 saacad ka hor inta aan lii dhaawicin waxaan ku sugnaa goobteeda shaqo waxaana ku guud jiray howlaheeda shaqo waxaan jeclaa ama mar kastaba aan ku fikir jiray in aan nolosha horumar aan ka gaaro 27 Agoosto 2012 wuxuu waay uu bariyay anigoo caafimaad qaba ay lixaadkaygu dhammaystiran yihiin wuxuuna gobolku igu dhacay anigoo isbitaal yaala faliibooyin igu socda xaalad adagna ku jira waxaan si qalbi ahaan ugu tilaabsaday dhaawacyadii isoo gaaray alxamdulillah ugu horeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad leh oo caafimaad siiyay tan labaadna waalidiinteeda iyo walaalahayga isoo garab istaagay khaasatan walaalkayga Cabdullaahi Xaajiyo maalintaas ilaa ay hadda garab taagan mar kastana i dhiirigeliya waxaan ahay sawir qaade ahna YouTuber muddadii aan ku jiray isbitaalka ayaa waxaa la baray sida aan nolosheeda aan ku maareyn lahaa haddii ahaa lahayd in aan cuntada karsado haddii ahaa lahayd in aan magaalada ka soo adeegto iyo haddii ahaa lahayd mar aan markaas wax aan u baahdo sidaas ayaan nolosheeda ku maareeyaa talo ahaan waxaan u soo jeedin lahaa dadka ay soo gaareen dhaawacyada waaweyn in ay ka quusan raxmadda Alle ayna ku qancaan qadarta Alle sidoo kalena ay muujiyaan dhabar adeegnimo tusaale ahaan shalay waxaan ahaa qof cagiis ku socda maantana ku socda gaari kuna qanacsan qadarta Alle Asad Xaajiyo